qabasho afduub jirdil ba'an baahidana kufsi haween naxariis darro tacaddi aan sal lahayn intuba halkan ayay ka dhaceen awooddu waa wejigan oo keliya shaqaynta waa rabitaanka hal wax oo ah adeecid dembiile qaran ayaa loogu yeedhaa intana fikirka aan kiisa ahayn waa dembiile qaran rabitaanka kiisa ka duwan isaguna waa dembiile qaran oo kale miidiyaha aan afkiisa ku hadlin waa dembiile qaran oo kale isaguna dadka aan cabsi ku gelin dalkiisana dembiile qaran ayaa iyagana loogu yeedhaa cabdi maxamuud cumar waa madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya 15 sano ayuu ka tirsanaa siyaasadda deegaanka 12 kamida wuxuu ahaa madaxweyne halka 3 sano kalena uu ahaa xubnaha ugu sarsareeya ee ka tirsan ciidanka deegaanka waxaa la sheegay inuu ahaa madaxweynihii ugu muddada dheer ee soo maray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa keligii taliye macangaga intiisa xunna aan cid tusin balse ficil ahaan ugu dhaqaaqa jeel ogaadeen ayaa lagu garan og yahay astaanta sawirkan ka dhex muuqata waana meesha uu ka dhacay waxa loogu yeedhay buugga taariikhda madow oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha 12 sano waa waqti iska kooban marka si loo eego balse waxa dhacay ayaa ka dhigaya 1000 sano iyo saayid dhimashadu ma qiyaasna curyaan aan ilaa hadda tirakoob lagu hayn iyo maskaxiyo dhaawac soo gaadhay awgeed u dhaxeeya geeri iyo nolol ka baxay ولا سيداي ولا عفيف أنا ولا سيداي وأنا لقاضي ما تقالنا جاء كان أنا لصاري دريسنا وحري الباب كمان أنا بحكري هذا أنا عسكري وصير ما تقالنا أول بسن وشقادي كوتشرا يا الله ساقبت لا بيلا تنم بانوهين لا بيلا تنسكري ولا ساقبت قد كان أنا لو قري وحال يودي لي يا ساقانا يا والمحابيس السن أورق مساك دايما لهم yidhi waana loo soo kaxeeyey guryahana loogu keenay kii dib uga istaagayba maxaan ku dhahay halkii hortanada ahayd baa inta xinayaa lagaga laagay buu mid waliba sanka dulkiisa ka sii daayay uus madow mid waliba halkii buu ku nafbaxay ilaasha ayada saasaan qaatay oo kaalay waxaan ku dhahay dhibaatada meesha tiileen gabdhahana ninka waxaan ku dhahay inaan ayaga magaciisa halkan ka sheegaynin intuu markaa commission naga intuu noo soo galo oo ninka noo soo kaxaynayay ragga ee oranayay kaalay nimadooda naagtaad fiilada ka galeysay soo qabsa gacanta ninkii oranayay waxaan ku dhahay intuu noo soo galo uu gabdhaha saaisha u mariyo gabadhii dhaban lahoo dhan intuu ka haysto ayuu dibadaha ku soo fuulayay wax maxaan ku dhahay dabayla iyo wax maxaan ku dhahay waasacnimo midna aan lahayn qolka inta la eeg adigu hadii aad qiyaasto waa 1 mitir oo isku weera marka qolkaas waxa lagu ciqaabi jiray in ka badan 50 ruux marka waa dareemi karisaan intaas oo boqolaal ama intaas oo sana ay ku jireen meeshaas ama intaas oo bilood ruuxi ku jira halka kaadi loo soo bixinaynin cunto la siinaynin soo noqonayo waa dareemi kartaan marka xaal dhibaatada aad u fara badnayd waxa la soo koobi karana ma aynan ahayn wixii ugu dardarnaa hadaan wax ka soo qabto foosto intii la soo qaado halkan waa meeshan ay balbaad nooga dhisnayd waxa dhacday gabadh umul ah oo dir dhaba laga soo qaaday oo nafteedu qabri daar u dhalatay yaa lagu riday foostadii waa lagu bariyay 15 bari weeyadii ilmaheedii aynan sarag marka biyaha loo dhigi jiray roobka da'ay inta calalada laga dhigan loo dhigi jiray foostooyinka biyaha inta la dhaxteen biyaha waliba biyaha kala tuushana laga shubahayay marka inkasta oo talayaab kale ay tahay in dalkani ku dhisnaa diinta astaanta waa naxariista ee islaamka ayaa haddana waxa dhacay waxay ka weyn yihiin qulubta muslimiinta mar kale annaga oo soo xiganayna hadal uu yiri Cabdi Maxamuud Cumar ayaa u muuqday inuu ku shaqeynayay amar ka baxsan awoodda deegaanka madaxa sirdoonka dalka ee Getachew Eza ee dhawaan xilka laga qaaday wuxuu u dhaqmi jiray si ka baxsan nidaamka dalka iyo nidaamka xisbiga uu ka tirsan yahay ee talada dalka haya muddadii dheereed ee uu xilka hayay wuxuu deegaanka ku hayay faragelin aan geed loogu soo gamban oo waliba sharci darro ah waxaana kamid ah cabsigelin handadaad qiyaano iyo qofka oo dambi aanu gelin dusha laga saaro si ka baxsan mabda'a siyaasadeed ee xisbiga talada dalka haya ee uu ka tirsan yahay xataa faragelintiisu waxay gaadhay heer ay xafiiska iigu yimaadaan dad leh Getachew Eza ayaa noo soo magacaabay madaxweyne ee Banee Booska arrimahaas xataa waan ku wargeliyay xisbiga talada haya wuxuuna Addis Ababa ku ururiyay dad uu ku eedeeyay in ay dambiyo ka geysteen deegaanka dambiyadaas oo ay kamid yihiin dhac boob
iyo musuqmaasuq waxaan aaminsanahay falalka dalka ka socda ee la rabo in lagu hakiyo isbeddelka dalka ka socda in ninka la yiraahdo Getachew Eza uu ka dambeeyo taasi ayaa u muuqata inay qasab ahayd inuu dhibkan sameeyo haddii ay jirto ujeedka hadalkiisa taasi oo uu ka doorbiday naxariista shacabka haysashada kursiga deegaanka looga taliyo bishii August 2018 ayaa xabsi guri loogu xidhay guri ku yaala Addis Ababa Cabdi Maxamuud Cumar balse markii laga saarayay ayaa hub tiro badan laga helay gurigii laga saaray oo ay ka mid yihiin qoryaha AK47 loo yaqaano oo 5 xabbo ka badan iyo baaskoolado taasi ayaa qayb ka sii noqotay eedeymaha hore kaliya oo ahaa dambi ka dhana xuquuqda aadanaha xisbiga talada dalka ayaa wuu jawaabay jawaabtu si talow maxay tahay ninkan soo Cabdi Maxamuud Cumar sheegay isagu taariikh ahaan waa nin xagee ka soo jeeda sideese hubka uu ku helay Cabdi Maxamuud Cumar hadiiba uu xabsi guri ku jiray iyo baaritaan ay samaysay isla warbaahinta madaxa bannaan ee Maaraac Media waxa kale oo iyadana ay kaga bogan doontaan warbixinta qaybaheeda dambe